أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى وحيمد على الإنسان إنسان ككركيسة حين وقت قاسو من الدهر زمن ككمطة لم يكن وقت قاسو لم يكن إنسان كوسنهين شيئا شيء قاسو مذكورا لشيغو إنا أنك خلقنا الإنسان إنسان كوا أبورنو إلهيري من نطفة لبع منيها كابورني مريداسو أمشاج نسكو دردرسان نبتليه حالا عن امتحان إنه إنسان كيان أبورني فجعلناه إنسان كوحن كدقني سميعا متمقلا بصيرا وحنا أركا إنا أنك هديناه إنسان كواتسمي السبيل والضبا إما شاكرا حالا ويهمت شكريا وإما كفورا حالا ويهمت كفرين بضان سورة الإنسان waxay kamid tahay suuradaha khilaafku ka jiro quraankii Makka ku soo degayba oo soo degay qabla al-hijra masawa quraankii soo degay ba'da al-hijra qowlka xooga badan ibn Jariirna uu doortay wuxuu yahay inay tahay suuradihii soo degay ba'da al-hijra oo ay madani tahay oo aysan Makki ahayn Abdullah ibn Abbasna sidaas ayaa laga wariyay حافظ بن حجر فتح الباري وكو شيغي marka waa suura madaniya oo quraanki Madiina ku soo degay kamid ah qowlkaas xoog badan labada qowlba waana jiraan suuratul insaan waxay ka hadlaydaa insaanka saddex xaaluu maray asagoon jirin ayay sheegi oo waqti waxa jiray irkan iyo dhulkan ay jireen oo dhisnaayeen wax insaan la yiraahdo uusan jirin nuucisba iyo jinsigiisba irkan iyo dhulkana waa dhisnaan ilaahina waa la caabudi jiray wax insaan la yiraahdo ma jirin taas ayaa jirtay waxay kala sheegaysaa suuradu markii la abuuray iyo qaabkii loo abuuray waxay kala iyo qaabkii uu markaas noqday oo xaaladii dhexe ah waxay hadana sheegin meeshuu ku dambeey doono saddexdaas xaalo insaanku leeyahay ayay ka warramay markii hore isagoon ba jirin waa la abuuray iyo qaabku u dhaqmay adduunka haddana mustaqbalka iyo meeshuu ku dambeey doono aakhiro taasay ka hadlay sidaas darteeda nabiga sallallahu alayhi wasallam suuradan wuxuu ku akhri jiray subaxda jumcada ah salaada subax ragcada dambe ragcada hore wuxuu ku akhri jiray alif lam mim tansil sajda ayuu ragcada hore ku akhri jiray salaada subax maalinta jumcada ah ragcada labaadna suuradan ku akhri jiray hay'ale waxa weeyaan qiyaamihii ay ka hadlaysaa marka si umada loo xasuusiyo bismillaahir rahmaanir rahiim hal ata laba macna hal ku banaan sida mufassiriintu maraan hal asalkeeda waa istifhaam weey istifhaam kana waxa loola jeedaa istifhaam taqriiriye sida aan soo marnay oo kaleeto alam nashrah miyana ku waasicinayo laka adiga satrka laabtada waa ku waasicinay sidaas oo kala laga dhigay hal ataa mayimid ala al-insaan insaanka korkiisa xiinu waqtigo min ad-dahr zamanka kamid ah waqtigaas oo lam yakun insaanku sanahayn shaygaas madkuuran la sheego mayimid oo ma soo martay waaba soo martay waa istifhaam oo taqriiriye markaas macnahaas mufassiriinta gabala mareen waana siday u badan yihiin mufassiriintu inay waxaan waa qaar kamid ah mareen say u badan yihiin maahane mufassiriintu aktarkoodu waxay mareen istifhaam ba inaysan ka dhigin oo iraahdaan hal ata hal maanta macnaheedu waa tahqiiq oo waxay la mid tahay qad oo kale istifhaamtiiba laga dhigin ma oo waxa weeyaan macnaheedu waa bimaana qad hal ata waxay dariiqaas u badan yihiin mufassiriintu laakiin وحد اللغة اللي هو معناها كلا أصل كان مجد لبعض طريقة ما على كل حال هل أتى وحيمت على الإنسان إنسان ككركيسة حين
waqtigaasoo min adahri zamanka ka mid ah waqtigaasoo lam yakun insaanku uusan ahayn shay-an shay uusan ahayn shaygaasoo madkuuran la sheego wax jiraba ma ahaynba insaan oo dhanba maba jirinba cirkiyan dhulkuna way dhisnaayeen malaa'igtu way jirta nebi aadan xataa lama abuurin taas waa jirta maxaa ka dambeeyey taas waa xaalad ilaah wuxuu yidhi subxaana innaa annaga khalaqnaa kuwii abuuray ayaan nahay al insaana insaanka min nudfatin dhibic mariyahan ka abuurnay dhibicdaasoo amshaajin isku dardarsan amshaaj waxa weeyaan waa jamac mufradkuna waxa weeye mashiij waxa la yidhaha shayga isku dardarsan maxaa loola jeedaa waxa weeyaan manidii hooyada iyo manidii aabbaho isku darsana laga abuuray wey shay isku dardarsana laga abuuray macnaheeda waxa weeye manidii hooyada iyo manidii aabbaho isku darsan ayaan ka abuurno ilahay leey marka insaanka jinsigiisa oo dhanaa laga hadlaya waxaan ku jirin oo meeshaas ka baxaya waxa weeyaan saddex oo aan mani laga abuurin waa nebi aadan iyo xaawa iyo nabiyullaahi ciisa ayaga saddexdaas mani lagama abuurin nebi aadan ilaahay carabuu ka abuuray xaawana nebi aadan feertiisa laga abuuray nebi ciisena ilaahay weynaaya kun aha uu yidhi kaasu fakaana oo iska ahaa marka waxa weeyaan saddexdaasu kuma jiraan inta kaloo insaankaa wey saddexdaas ayaa laga soo reebay marka waa caamun yuraadu bihi lkhusuus innaa anagu khalaqna alinsaana insaankii waa abuurnuu ilaah yidhi subxaana min nudfatin dhibic maniyahan ka abuurnay dhibicdaasoo amshaajin isku dardarsan oo iskaga darsan laba mani maxaa looga abuuray maxaa loo abuuray xikmaddii xaytaa ilaahay baa sheegaya ilaah wuxuu yidhi subxaana nabtaliihi xaala aan imtixaanayno insaanka waxaan u abuurnay imtixaan ma ahan inta la iska kaa abuuray iska soco gafer adoo ah laguma abuurin laakiin imtixaan aan u abuurnay waxay la macno tahay ilaahay qowlkiisa noo imaan doona suuratu lmulki alladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ilaahi weynaa waa kii geeri iyo nololba abuuray muxuu abuuray inuu in imtixaano liyabluwakum ayukum axsanu camala inuu inin imtixaano bal qofkiina ugu camal wanaagsan marka taasay la macno tahay taas markay waxay noo cadayday xikmadda ilaahay halkan noo keenay ma aanan joog jirin iyo meeshaan asal ka soo jeedno iyo waxaan ka samaysanna taasay noo cadday ilaah wuxuu yidhi subxaana mar haddii marka la imtixaana wuxuu u baahan yahay insaankii ilaah waa cadli wax uu imtixaanka uga bixi karo in la siiyo oo aalad ah ilaah wuxuu yidhi fajacalnaahu insaanka waxaan ka yeelnay samiican mid wax maqla basiiran oo wax arka dhegaan siina iyo indho si uu dhagahaas ugu dhagaysto waxyiga ilaahay rususha uu soo dhiibayo si uu indhahaas ugu aqriyo waxyiga ilaahay rususha uu soo dhiibayo waa labadii dari uu ka qaada lahaa waxa uu mukallafka ku yahay cilmigan lagu adoonsaday labadu ku qaada lahaa wey dhagaha inuu ku dhagaysto waxa weeyaan diinkaas ilaahay uu rususha la soo diray indhihii uu ku aqriyo markaas uu alle ku caabudo ilaahay weynaa sidaasuu leeyay subxaana wa tacaala fajacalnaahu samiican basiira welidaa saas daraaddeed qofka aan dhaga lahayn waxa weeyaan oo aan indha lahayn mukallafba ma ahan haddeer adduunka nabigeena suban sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay 4 qof oo berri qiyaame xujo la imaanayo wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaamaha waxaa istaagaa ninka dhagoolka ah markaasu wuxuu leeyahay oo aan waxba maqlayn wuxuu leeyahay rabbiyo waxyigu wuxuu yimid anoo waxba maqlayn seen ku caabuda waxaa kaloo imaanaya qofka sawirka ah oon caqliga lahayn markaasuu leeyahay rabbiyo waxyigu wuxuu yimid oo dadku dhagaysanayeen anoo meelaha ciyaalku dhagaxa digada igu tuuriyeynaya digada iyada carruurta igu tuuriyeynaya waxyigu yimid wax aan ka fahmayaba lama ah waxaa kaleeto sidaasoo kale hadlayo xujo tuuranaya waxa weeye odagii sacsacay oo caqligii waktigiisiiba ka gudbay oo asna sidaasoo kaleeto uu leeyahay rabbiyo waxyigii wuxuu yimid anoon wax aan garanayo la erag oon caqliba lahayn waxaa kaloo sidaasoo kale imaanaya qofkii 2 nabi u dhexeeyey markii diintii nabi ciise la bedelay oo diin saxa uusan oolin nabi maxamedna sallallahu alayhi wasallam aan la soo dirin ahlu fatra la yiraahdo dadkaas ahlu fatra kala go'iyay waqtigeedii noolaayeen waqti kala go'a oo diintii horena la bedelay midii dambena wari aan la soo dejin oo la soo dirin wuxuu leeyahay ilaahay aniga xaggayga rasuulba imaanba aniga xaq ii sheegay 4 taasa imaanayo xujo tuuranaya inta kale xujo mal dhagaa lagu siiyay indhaa lagu siiyay
rasuulna waa la soo diray kitaabna waa la soo dejiyay waxyigii waad maqlayday ama adaa diiday inaad maqasho ka ag maray dad ku dhageysan diiday dad ku dhageysatay aday ku taal afartaas marka maalinka qiyaamaha rabbul caalamiin wuxuu leeyahay waan gartay dan rasuul soo diray adeec ilaahay waa ku adeec ilaahay dan maqli lahayn markaas uu yahay hadir ma adeecidan taamaysi dab ay ilaahay inta naar tusuulay naartan gal haday adeecidan kii gala jannay u noqonay khalaas hadaad ma arkima illa ilaahay u adeecay kii raada ilaahay waaniga naar waa midaan ka xaranayna naar hol aydi ku noqon waana u dhamaan afartoodan saas arkiid ku dhamaan marka dhagaha iyo indhuhu wax caadiya ma waa imtixaan ka wixii loogu tala galay weey qofkii ka faa'iideysta oo waxiga ku dhageysta oo ilaahay ku fiiriya oo ilaahay uga baqa iyo qofkii waxa weeyaan ilaahay ku caasi labadaba waa imtixaanka wixii loogu tala galay in looga baxo waxa muhiim ah meesha adoonka banu aadanka ilaahay muxuu ku tilmaamay samiican basira rabbul caalamiin wax badan ee quraanka uu soo laalaabay asagoo isku tilmaamaya samiican basira ma isku mid ah kala sifaada uu allah isku tilmaamo adoomadana lagu tilmaamo magaca ayay wadaagaan wax kale macnaha kama dhaxay macnaha guud waxaanaynu kama dhaxay afar shay aynu ku kala duwan yihiin oo hal sifo markaad fahanto aad dhamaan wada fahmi karto waa maxay samciga ilaahay iyo basarka ilaahay ka soo qaad waa azali meelay ka soo bilowdeen ma jirto waligiis wuu lahaa alle laakiin samciga iyo basarka banu aadanka ilaahay uu siiyay waa xaadith waa wax gadaal ka yimid isma shabahaana arag ثانيا samciga iyo basarka allah waa abadi waligood way jirayaan laakiin samciga iyo basarka makhluuqa waa faaniyaan waa baaba'aya waa sifada wajka kale ku kala duwan yihiin ثالث samciga iyo basarka allah waa kaamil wax aan alla maqlino ma jiro wax uu san arkayno ka qarsoon ma jiraan waa kaamil samciga iyo basarka makhluuquna naaqis hada darbiga shaydiisa uma jeedo xabo kama arkay waa naaqis وصدق أفر وحي يكون كلا دوين سمعيك يبصرك الله وصفة ذاتية أصدق إسكالة سمعيك يبصرك مخلوقة وإلهي عضيادي أوسيي الله سيستي وكوك الله بيستي قفنا واكن كقاضات أركتين كيو كقاضي واكاس أنهيسن أفر تاسي يكون كلا دوين أي صفة كستا ومخلوق انت لغو الشيء الله لغو الشيء أفر تاسي كلا دوين حياتي سوقب إلهي وين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الضمادة مخلوقنا حي يخرج الحي من الميت الضمادة إلهي حي كنت نام أصلا حي وسكنت المامي لكن لبدا حياة أفر يكون كل دوين حياة تضع الله وأزلي مالك صوب الله بتمجرته وحجيريه كما هرمرين إيه جريتان لام لكن حياة تضع الضنك وحادثة هذا يقدر الكتب حياة تضع الله وأبد ولقى هذا الجريدة حياة تضع الضمادة وفانية هذا الضمانة كسر لمنا حياة الله وكامل نقصان ما تابطه لا تأخذه سنة ولا نوم حتى ما هردوده ما نقمان يوضو حياة الله الضنك والناقص انت هردوده ضعا وحنا مقل ما حنا أركب ما حياة الله إلهي وصفة ذاتية أصغى إسكاله حياة الله ومخلوقنا إلهي بسيئي وصفة ويساوي سيئي كل صفات الله ماشي صفة الله ليه هذه مقع إذا كان لغو الشيخو مدى الضمضة أفرتاسي كل دوين كل ساس هو سيداسة هو ديدا marka maxaad meesha kaaga cadaatay al-ittifaq fi al-asma' la yaqtadi al-ittifaq al-haqa'iq haday asmaadu iswaafaqan haqiiqadu inay iswaafaqsantahay ma shaqana isku mad midna waxay u laa'iq tahay ilaahi kamaalkiisa midna waxay u laa'iq tahay nuqsaanta adoon marka wax islaama inna annaga ilaahi hadaynahu insaanka wa u cadaynay hidaayada waa hidaayadii aan soo ogaanay وحوين وهداية الدلالة والبيان حق يا باطل كانوا كلا عطيني وي إنا أننا هديناه وتصمي إنسانك السبيل وضد تصنع وعطينا أو وحوين حق يا باطل كانوا كلا عدي طريقي جنة يا طريقي نار كانوا كلا عدي أسجم حسمي مك إلى وحور سبحانه إما شاكرا حالا ويهمت شكرية أيانو عطينا وضد وإما كفورا حالا ويهمت كفر بضا فيه wadadii waa la cadeeyay asbaabtii takliifka waa la siiyay markii loo dhamaystiray insaanka labadaas u qaybsan ma laba inuu qaybsana laga rabay laga marrab waxa la rabay dhamaan waa adoon ilaahay inuu adeeco saas laga rabay laakiin laba u qaybsan mid shaakir ah oo ilaahay ku shukriyo iyo mid kafuur oo gaalnimo badan shaakirka lama dhihin mid shukrin badan lama dhihin shakuur lama dhihin shaakir ali waa mid ilaahay ku shukriyo
maxaa yeelay si kastood ilaahay ugu shukrido mubaalaqa maba ku jirtaba maxaa yeelay xaqa allaadan ba guda karin soo ma jeedid laakiin mid kafur gaalnimo badan la isaga midda kale gaalaha iyo dadka shukraayana gaalada badan sidaas looga cabiray marka intaas waxa weeyaan waa xaaladii intaysan jirin iyo markii la abuuray sifadii loo abuuray iyo siday u qaybsameen abaalkoodii ilaahay hadda noo sheega subhanahu wa ta'ala siday abaalkoodu kala yahay ayaa rabbul alamin noo sheega ilaahu wuxuu subhanahu inna annaga a'tadna wa nudiyaarinay lil kaafirina qalada salaasila silsiladan u diyaarinay wa aqlalan katiinadan u diyaarinay wa sa'iran naar huraysan u diyaarinay innal abrara kuwa bariyalka yashrabuna way cabaan min kaasin galaas qamra xaqiisay ka cabaan galaas qamradaaso kaana misaajuha midka lagu daraya kaafuran kaafur wahaaday ayna il xageeday ka cabaan ayna il xageeday ka cabaan ishaaso yashrabu biha ay ku dhargaan ibadullah ilaahi adoomadiisa ishaaso yufajirunaha ay burqinayaan tafjiiran burqin yuufuuna bariyalku waa kuwa oofiya binadri shardi xirashada wayakhaafuuna waana kuwa ka baqa yowman maalinkaasoo kaana sharuhu shartiis uu ahaaday mustadiiran mid baaha wayudcimuuna way quudiyaan addacaama cuntada calaa xubbihi jacaylkiisa xaalo ay ku dheehan yihiin miskiinan miskiinayay quudiyaan wayatiiman agoonay quudiyaan wa asiiran maxbuusay quudiyaan إلى وحده سبحانه قائلين حال إليه نقوديان به إنما وكل معهم نطعمكم وإن قودنا لوجه الله إلهي وجهي سرين قودنا لا نريد حالا دورنا إن قودنا منكم حقين جزاء أبا القد ولا شكورا شكر إنا أنه نخاف وحن كعبسينا من ربنا حق ربنا حالك هذا يوما مال كاسو عبوسا وجه توبيد بدن مالين كاسو قمدرينا فول أرورين بدن فوقاهم الله إلهي وكإلالي شر ذلك اليوم مالين كشرتي سيله وكإلالي ولقاهم إلهي وحل كل ميي نطرة بلدلال في وجوه حق وجيالك وسرورا فرحت في القلوب حق قلبيالك وجزاهم وأبا المريي ربي الله أبا المريي بما صبروا بسبب صبرهم دلقاتين سببتين جنة كو أبا المريي إيا وحريرا دار حريرا مركي لغا صوحة الله وحوية سيدا يوقف سمين أبالكودي إلهي النوشيغي سبحانه وتعالى حافظ ابن كثير مركو آياتها المريي وحو سؤالوري الحديث وسؤالوري حديث كاسا توسعي dadku sida aayadan ay sheegtay imma shaakiran wa imma kafuran inay u qaybsamayaan oo wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa maalin la hadlay Ka'b ibn Ujra wuxuu ku yiri a'aadaka Allahu min imarati sufaha Ka'b ibn Ujra ilaahay ka badbaadiyo madaxda kuwa mangaabta aqliga fudud markay madaxnimada haystaan ilaahay shartooda ka badbaadiyo markaasuu yiri Ka'b ibn Ujra wama imaratu sufaha kuwa mangaabtahay aqliga fudud ee aan masaalix iyo mafaasid iyo daaca ilaahay garayn oo aan diin alle garayn maxay qaala wuxuu umaraa'un waa kuwa madax noqon doona oo yakuununa min bacdi aniga gadaalka imaad doona la yahtaduna bihadi aniga hanuunkayga iyo dariiqayga hanuun kama dhigtaan oo diinka ilaahay iyo diinki nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam diinki nabi maxamed ilaahu soo dhiibay diin kama dhigtaan oo sunna kama dhigtaan فمن صدقهم قفك الرمية بكذبهم بنت أي وضان قفك الرمية مدح الرحى وعانهم كنا قعنسي على ظلمهم قد الردودة فأولئك ضدك قعنسي مدح ذا صدبالذا فليسوا مني ولست منهم أنا أيقنا إيقا مدمان أنك مدمئي بريء عن كلامه قفك قعنسي أمرداس ولا يردون علي حوضي حوض كيغنا كعبي مايان كنا سؤالوري مايان ضدك قعنسي أمرداس ومن لم يعنهم قف كان كو غعنسين على ظلمهم غردردوده فاولئك كواس مني اريغا مديهم وانا منهم انك كميدان قف كبرين نقدا اي ان غعنسين
وسيردون على حوضي بركيغينا كسو اروري دونان يا كعب بن عجرة الصوم جنة صومك وقاشان والصدقة تطفئ الخطيئة صدقاتنا الدنبغي باب إذا والصلاة قربان صدقات ودوان شاء الله أو برهانا أما وحجو يا كعب بن حجرة إنه لا يدخل الجنة اللحم النبات من سحت جنة إلهي قال ما يهلب حاران كدش قف حاران عني هلب وصوت الشيء جنة إلا قال ما النار أولى به نار تحقل هلب كحاران تكسو دشي نار تحقل جنة ما قالوا هلب كسوان الجاس قف كستو انت حاران عني isbaarada cunay tuugada cunay khiyaanada cunay lacagta siyaasadda xaraanta lagu keenay cunay qalinka mid lagu xaday dadka mid laga dhacay naarta iskale dhamaan dadka cuna markaasuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ya ka'ab الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها كعبو dadku waa labo qof naftiisa gadayo naar ka xoreyna iyo mid gadayo oo naftiisa halaagay dadku labadaas u qaybsamay إنا اعتدنا إلهي وإنا قلدي كفرنت بدنين ألالكودو شيغو وحوير إنا أننا اعتدنا وحن الديارني للكافرين قالنا سلاسلة سلسلدان الديارني إيا وأغلالا كتينده إيا وصعير النار هريدا صدح داسا الديارن إلهي وحوين سلاسلشة وكتينده وسلسلدها اللغو حرايو اللغو تشيديو إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون سلسلتها والغو جيدا نارتا لغو جيدا تا لغو خيرخيرو نعوذ بالله منها ان اغلاشنا وكتيندها غعنتا iyo qoorta la isku xirayo sida ilaahay yiri idil aqlalu fi a'naqi waxa weeyaan suuratul yaasiin noogu imaan waa katiinado gacmaha iyo qoorta ayaa la isku xirin taasna iyo wasaxira naar horeyda saddexdaas ayaan u diyaarinay dadkii halmaamay wixii alla ka abuuray ee isla weynaadee daacada ilaahay ka kibray kuwaas waa sidaas dadkii xasuustay waxa laga abuuray ee aan xaq ilaahay iskala weynaan alla ku adeecay kana faa'iideystay dhagihii iyo indhihii waxa weyn abaalkoodi waa kuwana aad ayaa ilaahay ugu dheeraaday ilaa suurada aakhirkeedu dadka baariyaalka abaalkooda la sheegay ilaa suurada aakhirkeedu ilaahay wuxuu subhanahu innal abrara dadka baariyaalka yashrabuna waxay ka cabayaan min kaasin galaas khamra xaqiis baariyaalka waa dadka ilaahay adeeca oo baariyaalka oo wax kasta uu amray ka yeela ee samaynaya wax alla wuxuu ka reebayna ka fogaanay dadkaas weeye ilaahu wuxuu subhanahu min yashrabuna waxay ka cabayaan min kaasin galaas qamra kaasi waxa la yiraahdaa galaaska marka qamradu ku jirto haddaan qamra ku jirin galaas lama yiraahdo kaas oo quraanku uma isticmaalo kaana misaajuha qamradaas oo kaana uu ahaaday misaajuha midka loogu barxaya kaafuran kaafur waxa weey qamrada waxa loogu barxaya kaafur كافورku waxa weeyaan qabow badan ayuu leeyahay wuxuu kala leeyahay cadaan iyo caraf saddexdaas ma wali saddexdaas ay marka qamra caraf badan oo dhalaalaysa oo qabow saddexdaas isku darsaday iyo macna waa u dheer kaafuurka de adduunka la yaqaan waa bahal yaxyar wax lagu carfiyo dhalooyin yar yar iyo caagada yar yar iyo meelo yar yar ku xirxiran ma aha waxa jannada sideedaba waxa yaala iyo waxa adduunka yaala magaca bisa ka dhaxay wax kale ka dhaxay mal sababta fiiri kaafuurka wadanta meeyka iyo alla marmariya soo ma jeedid laakiin kaafuurka la sheegayo ilaahay wuxuu ku leeyahay ayna warwaa'il kaafuurka lagu sheegaya waa il qulqulayda midka jannada ma aha wax weeyaan meel yar ku xiran iyo wax aad yar ku jiro midna ma sidaas darteed waxa dareemayda magaca ka dhaxay wax kale ka dhaxay mal midda kale kaafuurka adduunka lama cuno wax la cuno ma aha kaafuurka adduunka waxa weeyaan kaas waa wax la cuno waa wax lagu macaansado waa wax lagu carafsado waa wax lagu raaxaysto marka magaca un baa ka dhaxay markaas ilaahay yiri subhanahu qamradaas oo kaana misaaju shayga loogu daraya kaafuuran kaafuur uu yahay aynan il uu yahay kaafuurka ka bedelo ama waxaad ka bedelataa kaasiga oo waxaad tiraahdaa aynan il xageed ayay ka cabayaan marka labada waa dhigi kartaa aynan il uu yahay waa il qulqulayda kaafuurka ishaaso yashrabu ay ku cabaan oo ku dhargaan shariba waxa weeyaan ba kuma taadido laakiin waxa la tadmiiniyo la dhaxgeliyay ficil oo ah rawiya yarwa marka yashrabu bimaana yarwa ay hada wadata way ka dhargaayaan yarwaada ba ku gudubta oo ku taadida marka aynan il ayu xageeda ka ahaaday waxay ku darsanayaan aynan il weeye ishaaso yashrabu biha ay ku cabaan oo ku dhargaan cibaadullah ilaahi adoomadiisa maxay tahay tan
waxa weeye ishaan lagu leeyahay waa loogu darayaa dadka loogu darayaa waa asxaabul yamiin ahlu jannihi ya laba asxaabul yamiin iyo wasaabiquuna alawwaluun saabiqiinta muqarrabiinta ah marka waxa weeyaan kuwa ah asxaabul yamiinta waxay leeyihiin ish waxa weeyaan qamradaas xoogaa barxa kaafuurka looga dara ama muqarrabiinta saabiqiinta ayadu ishaan oo waxba lagu darin oo ah waxa weeyaan iska qulqulayda ay cabayaan ishaan kaafuurka iska qulqulayda waxba lagu darin ay cabayaan kuwa saabiqiinta oo muqarrabiinta horana u soo marnay mudafifiin laakiin kuwa waxa weeyaan asxaabul yamiinka qamrayleyn qamrada xoogaa kaafuura loogu barxa ilaahu wuxuu subhanahu yufajjirunaha ishaasoo yufajjirunaha ay burqinayaan tafjiiran burqin xaloo la jeeda waa burqinaya way iska jiidanayaan maaha il meel ka burqanaysa oo markay u baahdaan ay soo doonanayaan ma waa il meeshay aadaan haday guriga dhexdiisa galaan haday barsada fariistaan haday banaan u baxaan haday goob kale aadaan waa daba socota meeshay rabaan ay u jiidanayaan yajurunaha meel alla meeshay rabaan ay u raaceen markaas iska burqanay waa il meeshay rabaan ay u jiidanayaan ee il meel joogto markii loo baahdo la soo aadaya ma aha marka ishaasoo yufajjiruunaha ay burqinayaan tafjiiran burqin ilaahi weyna subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa marka asbaabta jannadan lagu mudana si qofkii waxa weeyaan danaynaa uu uga faa'iidaysto u tartamo halkaas qofkaan danaynayna isagoo og waagu ugu baryo ilaahi wuxuu yidhi subxaana yuufuuna baariyaalku waxay oofiyaan binadri shardi xirashada wayaqaafuuna waxay ka baqaan yowman maalinkaasoo kaana uu ahaaday sharuhu dhibkiisu mustadiiran mid baaha ama faafa waxa weeyaan sababtay jannada ku miteen waxay tahay nadarkay oofiyaan nadarka waxa weeyaan waa cibaadada oo aslu shariica aan ilaahay kugu waajibin ood adigu isku waajibiday taasaa la yidhaha nadar adiga waxaad dhihi kartaa ilaahi weyna lilaahi calaya waxa weeyaan salaatun ama se sawmu aw sadaqa qofkii wuxuu leeyahay ilaahi weyna waxuu igu leeyahay oon u nadray inaan u soomo ama 2 maalmood u soomo ama bil u soomo ama inaan tukado ama aan sadaqa bixiyo waxbuu sheegana qofku hadduu waxa uu ku nadray ay tahay shay daaca inuu oofiyo wey waana واجب او وليبا waxay kamid tahay cibaadooyinka waajibka ah markaas noqoy aslu shariica waajib kuma ahayn sabab iska joog wuxuu yiri ilaahi weyna wuxuu igu leeyahay inaan u soomo 5 maalmood waajib waxa ku 5 maalmood inuu soomo waajib ay ku saga isi saaray marka hore bari aad ka eed caafimaad haysatay ada isi saaray waajib ku guta waxaad ku yeelayda jan wax fudud ma waa waajib cibaado weyn waa cibaado weyn sadarteeda nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam man nadara an yuti allaha falyuti qofkii shardi xirtay oo shardiga ku galay ilaahay inuu adeeco war ilaahay adeeca oo oofiya nadarki qof dad badan nadarka way galaan mar oofiya waa waajibaad ay ka tageen oo naar lagu mudanay laakiin nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wa man nadara an ya'si allaha fala ya'si qofkii nadar ku galay ama shardi ku galay inuu ilaahay caasiyo yu oofin haram yu oofin oo ilaahay yu caasi ma han shardiyan galay oo mesela qof nadar wuxuu ku galay isyaan qof waxa weeyaan muslim wuxuu leeyahay ilaahay balankiis waxa nadar ugu ah inaan la hadlin wa haram wuxuu la hadli diiday nabiga abale wala tadabbaru wara kala jeesanin isla hadlo ma ujeeda marka nadar ku gala qof qaraabadii wuxuu leeyahay balan waxa inaanan xiriirin uu leeyahay nadar ku gal hadii marka shay macsiya aad nadar ku gashay ama qof muslim inuu soo diruba nadar ku gala nadar ilaahay waxa uu leeyahay hebel gowra waa dulmi soma marka ala kulli hal macsi qofkii nadar ku galay uu oofin bal iska badaa hadii shay uu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofku nadar ku galo shaygiina uu ogaado inay laga fiican yahay hatta haram maaha uu oofin inta shayga fiican sameeyo waxa weeyaan kafaara gud ha iska sameeyo kafaara gud ha sameeyo uu dhihin waxa weeyaan nadaran galay soo ma jeedi waasaas wax shay uu ka dhaartay mesela marka waa noocaas nadarka oo waliba wax ku xiran yihiin oo maaragtay qofku inuu yiraahdo ilaahay hadduu waxaas isiyo waxaas aan u sameeyna qofku inuu iska daayaa ku fiican nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii saxiixa uga sugan nadarku wax uu keena lama arko marka nadarka galeedo leedahay ilaahay waxaas hadduu isiyo waxaas aan ilaadahan sameeyna
sidii uu arintu u dhici lahayd waxba ka bedeli ma nadarkaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nadarka hal shay faa'iideeyna inma yustakhraju min al-bakhil qof baqiil oo qayr iyo cibaado sameeyeen baa wax looga soo saara qayrka intaasan sadaqayna u leeyahay waxaas Allah isiyo wixii waxa weeyaan awalba waa heli lahaa markuu helo uu wixii bixina baqiilka baa wax looga qaadahay qadarka alle wax kama bedelo marka ay saar waxaan qaadi karin mas'ala muhiim nadarkii hadda waxaan ogaanay fiiriya inuu yahay cibaado hadii la sameeyo ilaahay janno looga helayo shaki miya kaaga jira inay cibaado tahay marka nadarkii fiiri nabiguna wuxuu leeyahay man nadara an yudiica Allah falyuti ayadan quraankaana dadkii baariyalka maxay ilaahay yiri muxuu ilaahay ku tilmaamay yuufuuna binadr marka nadarkii muxuu noqday cibaado hadaad sameeydo aad ilaahay janno uga helayo haday cadaatay inay cibaado tahay bil kitaab wa sunnah ay ku cadaatay waxa xaraan ah cibaado ilaahay qeyrkiis in loo leexiyo ilaahay qeyrkiis inaad caabudo oo mesela maxaa kamid ah dad inta u timaado qof dhintay ama aabaha ama awowga ama qof kale muslim oo dhintay aad tiraado sheekhebelow di waxa weeyaan caruur cid hesho caruur laana jirta nadar waxa iyo shardi ah inaan neef ku soo qala marka caruurka heshana u qash ilaahayna ama marka waxa ilaahay waxa nadar waa hadii aan waxa weyn caruur helo inaan neef darka u qalo neefkii aad qasho tan alle marka uu sameeyo waa cibaado tan maxay waa nafsuha waa yadi soma hada marka leexinta nadarka loo leexiyo alle qeyrkiis waa shirka akbar ogo waa cibaado ilaahay qeyrkiis la caabuday fiiri waa cibaado ilaahay qeyrkiis la caabuday marka masaladaasna aad loogu baraaro wayna dhacdaa oo dadka gabala arintaas ku dhaca qaladka ah oo qabuurihi inta agistaagan ama roob marka la waayo ama caruur la waayo ama gaajo timaado ayuu leeyahay sheekh hebel haday sidaas u timaado intaasan ku siinaa waa arin qatar ah waa cibaado ilaahay qeybis la caabudayo cadwi marka dadka muslimiinta ilaahay uga baqeen ilaahay weynana arintaas uga soo toobad keenay ilaahu wuxuu subhana bariyalkii noo tilmaamin yuufuna wayafiyaan bariyalku binadri shardi xirashada wayakhafuna waxay ka baqaan yawman maalin kaasoo kaana sharruhu dhibkiisu ahaaday mustadiran mid baaha ama faafa mid shartiisu mustadiran mid faafaya waa maxay waa mid ummado dhan gaaray nabiyalkii cabsanaya nabiyalkii ayaa cabsanaya maalinkaasay ka baqaan qowlkooday ka xisaabtamaan ficilkooday ka xisaabtamaan dadka noocaas adduunka ku ah waa dadkaas baariyaalka haddana wax kale aan loo sheegin oo jannada ku muteen ilaa wuxuu yiri subhana wa yut'imuna way quudiyaan dadka baariyaalka الطعام عنتبا ايي قوديان على حبه مع حبه جعيلكيسو ايدو جعيلكيس حالي كسويهين مسكينا يقوديان ويتيما اضون يقوديان واصيرا محبوس يقوديان sababtay jannada ku muteen waxa kamid ah ilaah leeyahay waxay dhaqaalahooday wax ka bixiyaan ayagoo dhaqaalaha u baahan firi dhaqaalahooday bixiyaan ayagoo u baahan ma ahan ayagoo uu ka soo haray ما أن واحد لي ويدي وسياد وقشي ويدي ما على حبه ضمير كلام ميراد اللوعرية الله هو اللوعرية على حبه الله جعيل كيس حالي كسوغيه جعيل الله يغو كسوغان أي مالك بحيان معناها سوى جريا لكن اللي حب بدي معناها ظاهر كواحد طيب على حبه حب المال مالك أيغو جعيل أي وحويان هضنا بحيان أيغو جعيل مالك أي بحيان taasna waxa cadeynaya xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo aayadaha quraanka oo waxaan arki doonaa lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun birri ya daa'a gaari meeydan ila aad wax ka bixidaan waxa aad jeceshihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa waxa ka sugnaaday afdalu sadaqa waxa u fadli badan an tasaddaqa وأنت صحيح شحيح هذا وحويا إنك مالك بحيدو أضو عافمات قضا مالك نتشعل تؤمل الغنى وتخشى الفقر وقال نبرر جينا إسلاح هذا واحد اسكارسيدو اسكو دردرتو قني يدمقين فقرنا كعب صاي إسلاح هذا واحد بحيدامات فقيرتا مركا صدقاء البحيدوي صدقاء أجر كلا ما هم حواقا كاسو هرأيو انت وحويا انت لك كرسدو الله عنوة ما لدى حالا هذا مسكين ترمال سيو وحاس معه waxa baariyalka ilaahay ku tilmaama fiiriye waxa weyn adoo faqri ka cabsado isla waxa hadaad bixida amaad faqirta adigoo qaninimo rajaynaa isla war hadaad isku dardarto amaad qanin noqotaa markaas hantida aad bixido way markaas hantida aad bixido taasa ilaahay weyna wax looga gaara
oo jannada ilaahay lagu helaa oo ilaahay dadka baariyaalka ku ammaanay waa midkaas dadka la siinaa saddexdaana ilaahay uu soo qaado oo ugu dardaran miskiina miskiin waa qof aan haysan nolol ku filan miskiinku waa qofka aan haysan nolol ku filan waxa uu u baahan yahay qayb uu haystaa laakiin wax ku filan ma haysto ama se waxa weeye waxba ma hayaba oo mar haddii miskiin kaliya la sheego faqiirkii waa ku jira mid ka tuugsanayo taagan